Haya khiyaarta soo dhawaada muuqaalkeen maanta wuxuu ku bilaabanayaa ninkan wuxuu degan yahay apartment wuxuu jecel yahay mar walba inuu siiyo mukulaasha caano ninkii wuxuu maqlayaa hal mar dhabaqaas oo ah mid aad u sareeyo waxa iska bacdi arkaynaa gabar aad u qurux badan oo dhulka ku dhacday waxaan halkaas ugu imaanayso hooyadeeda siinkeena ku xiga waxa arkaynaa Jai Rhyme oo ah gabartan aabaheeda wuxuu jecel yahay inay barato cunto karinta sababtoo ah waa dhaqan yaalo Hindiya wuxuuna aaminsan yahay haddii sida cuntada loo karin ee baranin inayna helaynin nin guursanaynin wuxuuna ku leeyahay hooyadeeda waa inay barataa gabarta cunto karinta haddii kale lama arkaayo nin guursado ninkii apartmentiga qayb ka mid deganaa oo la dhahay Inder ayaa waxaan arkaynaa oo la joogto naag ninkan dabeecadiisa way ka duwan yihiin dabeecadaha kale ee dadka waxaa arkaynaa gabartii aabaheeda Jai Rhyme oo ku hadlaya telefoon wuxuuna u sheegayaa gabartii hooyadeeda inay ku qasaaray gabadhiisa wuxuuna u sheegayaa gabartiisa inuuna arkaynin cid guursanayso gabartii waxaan arkaynaa haddana oo ku qaylinayso walaasheed ka yar ayaa wuxuu ku haystay inay guursato waxay taagantahay aniga guursan lahaay adiga ayaa ku sugaya dhaqamanka qaarkood oo Hindi ka jirana waa sidaas iyadoo joogto walaashaada ka weyn guursama karti waa inay iyada guursataa ka bacdi ay guursan kartaa waxaan arkaynaa siinkeena ku xigo Jai Rhyme oo gabarta aabaheed ah oo ka soo baxay guriga isla markiina wuxuu arkayaa ninkii deriska laahay oo deganaa apartmentigii iyo naag oo isku dhegan waxayna sameynayaan waxyaabo akhlaaq xun Jai wuu u tagayaa wuxuuna ku leeyahay joojiye waxyaabahan waxa halkan ii joogo gabdho weyniga arkayaan waxyaabahan laakiin hadalkiisa kuma soconin hadalkiisana ma maqlayaan Jai Rhyme wuxuu u soo baxayaa banaanka wuxuuna u sheegayaa dadka deriska ahaa oo dhan ninkan waalan in laga qabto nimankii deriska la ahaayo dhan wuxuu u sheegayaa ninkan inuu yahay nin kibirsan aabihiisna oo yahay taajir lacag fara badan haysto Jai Rhyme wuu qaylinaya wuxuuna ku leeyahay waa inaa ka wata halkan gabdhahayga ninkan fasahaada badan gabdhahayga ayaan ugu cabsoonayaa wuxuuna iska aasanayaa shaqadiisa iska bacdi waxaan arkaynaa gabartii oo dhalay oo joogto meel ay ka shaqayso waxaan isla markii u imaanayo ninkan ayay baranayaan wuxuuna weydiinayaa magaceeda waxayna ku leedahay waxa la dhahaa Sareswari sidoo kale waxa isbarayo ninkan wuxuuna u sheegayaa inuu shirkadan ay ka shaqayso oo ka yahay marketing iyo la taliye ninkii ayaa wuxuu weydiinayo maxaa kale oo jeclaa lahayd inaad ka shaqayso oo meeshaan ahayn waxayna ku leedahay waxaan jeclahay meelaha daansiga oo lagu ciyaaro inaan ka shaqeeyo ninkii markuu kasii tagay wuxuu ka salaaxayaa madaxa laakiin iyada waxaa galay jacayl waxayna haysataa ninkii madaxa meeshuu ka salaaxay shaqada ka baxdi waxay soo aasanaysaa shaqo kale waxayna u sameynaysaa caruur madadaalo waxayna soo gashanaysaa dharka boonbilaha markay kasoo tagto caruurta waxay soo raaci doontaa wiishka waxay ku kulmi doonaan ninkii deriskeeda ahaa oo magaciisa lahay Inder waxa ka jira wiishka kuleel aad u daran wuxuu bilaabayaa Inder inuu siibto shaatiga isla markii oo shaatiga iska bixiyo Sareswari waxay bilaabaysaa inay qayliso waxayna ku leedahay maxaa u sameysay sidaan isla markii wuxuu maqlayaa hadalkeeda wuxuuna gashanayaa shaatigii waxay ku leedahay dharka boonbila ee wadatay shineerkooda iyo xir wuxuuna bilaabayaa inuu u xiro dharkay wadatay shineerkooda laakiin hal mar ay wuxuu xirayaa si xoog ah wuxuuna gooynayaa shineerkii gabartii iyadoo xishoonayso ay waxay kasoo cararaysaa wiishka maalintii ku xigtay wuxuu u keenayaa madaxii boonbilaha waxayna ahayd halkay ku kulmeen meel book shop ah wuxuu weydiinayaa buug la dhaho ninkii ku jiro jeelka waqtigii ugu dheeraay abid isla markii way baxaysaa waxayna u soo raadinaysaa buugii ayay soo helaysaa wayna u keenaysaa Jai Rhyme iyo gabartiisa ayaa wiishka waxay kusoo galayso naagtii oo la joogtay Inder naagtan ay waxay ku qaylinaysay Inder waa hagaag waxaa isla qadaynayay familka waxay ku camirinayaan gabartii ahayd Sareswari waxayna ku leeyihiin waa duqooday mana guursanin weli India waxaa ka jira dhaqaman aad u fara badan gabartan waxay jecel yihiin inay ku guursato yaraanta Sareswari walaasheeda ka yareeday waxay u keenaysaa wiil waxayna ku sheekaysanayeen afartooda meesha laakiin Sareswari waxyaabahaas oo dhan ma xiiseenin iyada Sareswari walaasheed ka yar ay waxay ka qaadatay telefoonka waxayna ku dhahaysay isii teleefoonkeyga Sareswari waxay iskaga soo baxaysaa banaanka ay waxay ku kulmayaan mar kale Inder markay ku noqoto guriga walaasheed ka yareed ilaa hadda waxay ku wadaa qayle iyo buuq waxayna ku leedahay adiga waxaa tahay qof aad u fool xun qof ku rabtana lama helayo xitaa hadaa ku keenay nin waxay aasanaysaa mar kale laabaliga waxayna ka soo qaadanaysaa buugaas oo ah sida la isku qurxiyo oo loo soo jiito ragga hadda waxay joogtaa shaqada waxayna rabtaa inay la kulanto ninkii hadda ka hor isku baranayeen meeshaan laakiin telefoonkiisa markay wacdo waxa ka qabanayo qof kale Sareswari oo akhrisanaysa buugeeda waxay daaqada ka arkaysaa ninkii deriskeeda ahaa habeenkii markay xaafadda imaado waxay arkaysaa walaasheed ka yareed oo ooynayso waxaana qalbiga ka jabiyay oo dhaawacay wiilkii la socotay walaasheed oo hurdo la tagtay ay waxay ka qaadaysaa telefoonka wayna jiifinaysaa waxay u tagaysaa ninkii deriska ahaa waxaan u gargaraacaysaa albaabka waxa ka furaayo ninkii deriska ahaa waxayna ku leedahay waxaan rabaa inaan waxyaabo badan kaala hadlo waxay tusaysaa buugii waxayna ku leedahay waxaan rabaa qof soo jiidasho leh inaan noqdo waxayna ku leedahay nin kasto ima xiiseeyo iyadoo sheekadii uu waday ay waxa albaabka soo gargaraacayso naagtii saaxiibadiisa ahayd waxay iska soo badisay qamri waxayna wadatay dhala qamri ah waxay caynaysaa Sareswari waxayna ku leedahay maxaa ku keenay gurigeyga Sareswari waxay bilaabaysaa inay ooydo laakiin
waxaa ka celinaysa markii Indeer wuxuuna ku leeyahay gabartan kale ee sidaasan u lama hadli kartii. Naagtii cabsaneyd ayaa waxay dhahayso ha iraali geliso iyada ay igu timid gurigeyga waxayna ku soo tuuraysaa dhaladii ay wadatay. dhaladii ayaa waxay ku dhacaysaa derbiga qayb ka mid ah dhaladii waxay galaysaa duudka Indeer. Saar Iswaari waxay soo aasanayaan meel caafimaad oo u dhow laakiin kor waxaa ka arkaya waardiyahan ayaa wuxuu leeyahay ku ceewin sheekadaane ninkaaniit waa ina u sheegtaa booliiska wuxuuna u wacayaa booliiskii ayaa wuxuu ugu imaanayo meelay wax ka gadanayeen. booliiskii ayaa weydii doona su'aal ah gabartan halkay ka keentay aabeed kuma ogolo inaad soo wadato maxaa kuu soo raacday gabartan. laakiin waxaa la hadlayso Saar Iswaati waxayna ku leedahay aniga ayaa soo raacay iska raali noqo inta lagu soo dhibay ee iska bax. ninkii booliiska ahaa oo qoslaayo uu iska baxaya. markay ku soo noqdaan dabaqa ee deganaayeen ninkii waardiye ahaa ma joojinayo ilaa hadda wicitaanka wuxuuna wacayaa mar kale taleefan. subaxdii ku xigtay ninkii booliiska ahaa iyo odayaasha xaafadda waxa ku qaylinaya Saar Iswaati aabaheeda wuxuuna ku leeyahay xalay maxay ii soo wici weyseen aniga marka adinka is wicaysiin oo arrinkaas igu sheegi weyseen. odayaasha xaafadda iyo markay i soo raacaan ninkii waardiye ahaa waxay arkayaan guriga Indeer ee isla joogaan gabartiisa iyo Indeer waxayna u fahmayaan si qaldan. isla markii waxa uu maanay Saar Iswaari aabaheeda wuxuuna ku dhufanayaa dharbaaxsho. Saar Iswaari waxay ku naqanaysaa iyadoo oynayso xafiiskeeda waxayna isku malaysaa inay tahay dambile. Saar Iswaari oo saaran bas oo u soo socoto xaafadeeda waxa soo wicayso hooyadeeda waxay u sheegaysaa walaasheeda in la guurso rabo laakiin oo guurkan dhacaynin iyadoo la guursanin walaasheeda ka weyn. Saar Iswaari oo oynayso ay waxay soo aasanayso shaqadeeda. Saar Iswaari ilaa hadda waxay wuxuusaa taleefankii oo ka qaadatay ninkii laakiin kama qabanayo ilaa hadda. Saar Iswaari waxa uu maanayo shaqadeeda Indeer wuxuu u sheegi doonaa inuu u soo guuray meel cusub wuxuuna sii doonaa furaha wuxuu u soo wadi doonaa xaafadda cusub oo u soo guuray wayna ku farxi doontaa Saar Iswaari. hadda aabaheeda way kala badbaadayaan waxay soo aasanayaan sidoo kale suuqa ayagoo ka soo gadanayo qudaar waxayna cabayaan caanahaas oo laga sameeyo dhirta waxaana cabaan Hindiyaanka. Saar Iswaari caanihi ay ku sarqaamaysaa waxayna ka baxaysaa xadka waxayna jiifanaysaa wadada tariinka laakiin waxa badbaadinayo Indeer. Saar Iswaari iyo waxa isla socdeen Indeer Saar Iswaari wuxuu u sheegayaa inay tahay gabar aad u qurux badan oo ah gabar romantic ah laakiin Saar Iswaari wiiligeeda hadalkaas qaf kuma dhihin waa markii ugu horeysay oo lagu dhaho. Saar Iswaari iyo Indeer waxay arkayaan boorso yar oo ku dhacday wadada. boorsadaasii ayaa waxa ugu dhacday qaf waxaana qaadanayo nin masaakiin ah ninkii ay ka soo qabanayaan boorsadii ay wuxuu ka soo qaadayaa Indeer ninkii. boorsadii markuu fiiriyo oo argiyo wax ku qoran iyo magaca boorsada ku qoran wuu tuurayaa laakiin dib waxa uu soo qaadayso Saar Iswaari wayna ka soo qaadayaan waxa ku qornay halkaas magacii ay wuxuu u sheegaysaa Indeer wuu xanaaqayaa markuu maqlo magacii waxaanu ku leedahay waxaan raadinaynaa boorsadan qofkii iska leeyahay. Indeer wuxuu cabayay dhalo qamri ah waxaana hadal ku waday markaasii Saar Iswaari wuu ku xanaaqayaa Saar Iswaari wuxuuna ku kala tuurayaa meel qashin ah. Saar Iswaari waxa soo gaaraya xanuun waxaana arkayo ninkii waa ninkii lahay boorsada asigoo sii baxayo gaarigiisa fuulay waxay siinaysaa boorsadiisa. ninkaasna wuxuu ahaa Indeer aabihiisa Indeerna way isnicib yihiin aabihiisa. waxaan arkaynaa Indeer oo imaaday xaafadiisa cusub wuxuuna aad ugu dhargayaa qamri. Indeer wuu soo baxayaa wuxuuna imaanayaa xaafadda Saar Iswaari waardiyaha ayaa albaabka ka celinaya laakiin gudaha ayuu u galaya wuuna ka soo waynayaa. Indeer soo socday wuxuu ka soo raadinayaa busteejada gawaarida halkaas ayuu ugu imaanayaa. Indeer Saar Iswaari wuxuu ku dhihi doonaa iga raali noqo anigoo cabsan ayaa waxa kuu sameeyay qalad laakiin Saar Iswaari sidoo kale waxay dhihi doontaa iga raali noqo waxayna sii doontaa hab. waqtigaas waxaa arkayay aabaheeda oo saaran taxi waxay u sheegaysaa Saar Iswaari aabaheeda wuxuu ku neceb yahay asiga waxayna ku leedahay wuxuu ku maleeyaa nin ciyaal suuq ah oo waalan. Saar Iswaari sidoo kale Indeer wuxuu u sheegi doontaa waxyaabo fara badan waxayna ku dhihi doontaa walaashay ayaa la rabaa in la guursado laakiin waa ogtahay dhaqanka noo yaala aniga waxayna ku leedahay aniga ayaa ka weyn aniga oo lay guursan lama guursan karo. waxay ku dhihi doontaa aniga wajigayga fiiri waxaan ahay qof fool xun hadaa heli lahay qof i guursato way fiicnaa laheeday. waxayna leedahay hadda waxaan raadinayaa nin i guursado. Indeer wuxuu u soo wadayaa meel bukiyeer ah oo lagu qurxiyo dumarka waxaa la keenay meeshii bukiyeerka waxaana laga dhigayaa qof nooc kale ah. Indeer wuxuu ka helayaa Saar Iswaari waxayna noqotay qof aad u qurux badan. gabartii Saar Iswaari aheed aad ay u faraxsaneed waxayna tegaysaa muraayada iyadoo isku faraxsan. Saar Iswaari wuxuu ku soo noqonaysaa shaqadeeda iyadoo iska soo bedeshay sideeda waxayna u soo labisanaysaa kalkaan si ka duwan sidii waxaana eegayay oo fiirinayay dadka oo dhan. Saar Iswaari waxay dib u kulmayaan wiilkii raadi jirtay oo hadda koor isbari jireen oo ka shaqaynaya sidoo kale shirkadan. waxaa imaanaya halkaas Indeer waxaana ka sheekaysanaya Saar Iswaari dadka oo dhan laakiin Indeer ayaa maqlaya waqtigaas. Indeer wuxuu u imaanayaa Saar Iswaari wuxuuna u waday buug oo ku qoran yihiin rag maalqabeenyaal ah wuxuuna ku leeyahay waxa kuu soo xulay raggan ka xulo mid ka rabtid.